السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوديال ميل والبا joogtaan ba qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida Itoobiya oo abaabulkii ugu weynaa ee dagaalka socdo dagaalkaas oo lagu tilmaamay kii kala baxa inuu yahay guusha iyo guul daradaba sidoo kale dagaal xooggan ayaa laga soo sheegay duleedka magaalada Addis Ababa deegaana aan sida uga fogeyn anfarta iyo Soomaalida oo dhaxdhaxaadin fiican meel u marayso ayadoo la soo sheegay in halkaas dawladda federaalka dhaxdhaxaadin ka wado maalmaana uu dagaal ka dhicin deegaanadaasi sidoo kale jabhadda Oromiya ayaa waxay sheegtay dhul ballaaran inay qabsatay kuna dhowdahay caasimadda gobolka Oromada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan aad warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegantahay 14 bisha 9 2021 hadaynu guda galno wararkeeni oo faahfaahsan is-abaabul weyn oo dawladda federaalka iyo kooxaha ka soo horjeeday mucaaradka sida TPLF ayaa laga soo sheegay inuu abaabulkii ugu ballan ka socdo dalweynaha Itoobiya dawladda federaalka Itoobiya ayaa maleeshiyadkii abid ugu badnaa waxay ku soo daabulaysaa gobolka Axmarada ee dagaaladu halakeeyeen dawladda federaalka ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay ku jirtay abaabulkii ugu dambeeyay ee ku sheegtay ka xoreynta gobolka Axmarada iyo Canfarta TPLF hase yeeshee kooxda TPLF ayaa maalinimadii shalay ilaa maanta waxay gobolka Axmarada ku soo daabulaysaa hubkii ugu badnaa ee dawladda federaalka ka qabsatay ayadoo maalinimadii shalay ay taangiyadii abid ugu badnaa soo daabulaysay oo sidoo kale la sheegay ugu yaraan taangiyo 50 gaadhaya inay ku soo daabulayso gobolka Axmarada taangiyadan TPLF soo daabulayso ayaan la garanaynin meel ay ka keentay ayadoo ku sheegtay inay bililaqadii ay ka gaadhay ama qalimadii ay ka qaadatay dawladda federaalka inay tahay hubkan ay dawladda Itoobiya ku sii daabulayso gobolka Axmarada ayaan la garanaynin meel uu ku dambeyn doono inay guusha iyo guul daradu midka ay raaci doonto dawladda federaalka ayaa la soo sheegay hadda abaabulkan wada haday ku guulaysan weydo kooxda TPLF-na ay kaga saari weydo gobolka Axmarada inay tahay markii ugu dambeysay ay dawladda federaalku isku daydo TPLF inay weerar cir iyo dhul ku qaado ayadoo usbuucii soo dhaafnay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu booqasho ku tagay wadamo badan oo Afrika kamid ah taageerana ka dalbaday sidoo kale usbuucyadii ka sii horeysay uu ku sugnaa dalka Turkiga iyo dalalka caalamka dagaaladan xooggan ee u dhaxeeya TPLF iyo dawladda federaalka Itoobiya ayaa la garanayn goor ay soo afjarmi doonaan kooxda TPLF ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay ku jirtay abaabul ciidan oo soo wado ay ku leedahay gobolka Axmarada ayaan ku xoranaynaa waana dagaalkii ugu dambeeyay TPLF ayaa waxay sheegtay inuu yahay dagaalkii ugu dambeeyay ee kala baxa ee guusha iyo guul daradaba TPLF ayaa dhalinyaradii abid ugu badnaa waxay soo hubaysay oo ku soo daabulaysaa gobolka Axmarada ayadoo maalinimadii shalay taangiyadii abid ugu badnaa ku soo qulqulinaysay gobolka Axmarada ay dagaaladu halakeeyeen sidoo kale jamhada aan la garanayn haybtooda iyo meelaha ka soo jeedaan ayaa la sheegay inay TPLF ka garab dagaalamayaan kooxda TPLF ayaa lagu eedeynayaa inay hubaynayso qabiilo badan oo ka tirsan gobolka Axmarada hoona hoosta taga qabiilada maamulka Axmarada ayaa la soo sheegay inay halkaas dagaal waaweyn ka wadaan oo TPLF-na wadooyinka u sii xaadayaan qabiilka qimad ayaa lagu eedeeyay inuu gabi ahaanba TPLF la sabtay TPLF-na ay aad u hubaynayso qoomiyadda Axmarada ayaa ku eedeynaysa TPLF inay ka soo horjeysay qabiiladii deegaanka la deganaa ee gobolka Axmaradana ka tirsanaa madaxweynaha Axmarada ayaa usbuucii la soo dhaafay u digay qabiilada gobolka Axmarada degan ee ka tirsan maamulkiisa inay dhowraan sharciga cidii sharciga u hoggaansami doontana cidii sharciga u hoggaansami weydana in sharciga la horkeeni doono madaxweynaha Axmarada ayaa ugu baaqay shacabka Axmarada inay gabi ahaanba hubka qaataan dagaalkan TPLF la galaan cid kasto ay kaga shakiyaan inay xabada saaran kurkana ka gooyaan madaxweynaha Axmarada ayaa ku sifeeyay dagaalka ka socda gobolka Axmarada inuu dagaal qabiil yahay una ahayn dagaal dawladda federaalka iyo TPLF u dhaxeeya TPLF ayaa ku eedeeyay inay tahay camaasir dalka Itoobiya ku soo dushay khaasatan gobolka Axmarada iyo shacabka Axmarada noloshiisa ka soo horjeeda hase yeeshee hadalkaasi waxaa burinaya qoomiyadaha kale gobolka Axmarada ka tirsan ayaa waxay sheegeen inay qoomiyadda Axmarada ku hoos dulman yihiin maalinka ay iska xoreyn lahaayeen ay tahay TPLF ayaa ugu baaqday qoomiyadaha gobolka Axmarada degan inay hubka qaataan deegaanadooda xoreystaan TPLF-na ay aqoonsan tahay cid kasta oo Axmara iska xoreysa ama gees uga istaagta
dagaalka ay TPLF wada ayaa dagaal daba dheeraaday isagoo bishii November ee sanadkii hore ka bilowday waqooyiga dalka Itoobiya hase yeeshee dowladda federaalka kuma guuleysanin in TPLF gabi ahaanba gacanta mariso gabi ahaanba cagta mariso dhulkana ay ka xoreysay siyaasad guudna ay dalka ku soo dabaasho Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa wada wali inuu quusan dagaalka TPLF-na inuu wali ka quusan hase yeeshee Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegaya inuu wadanka barwaaqo gaarsiin doono nabadna ku soo dabaali doono TPLF-na waqtigeedii uu soo dhamaaday hadalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa ku soo beegmaya isagoo la isku ogaa bishan inay bishii tahay qarannimada Ra'iisul Wasaaraha ayaa bishii hore ku sheegay bishan 9aad inay tahay bishii dalka Itoobiya oo dhan loo ducayn lahaa la iskugu iman lahaa miiska wada hadalka mucaarad iyo muxaafid ay magaalada Addis Ababa iskugu iman lahaayeen si dalkana loogu duceeyo dawladna loogu dhiso hadda yeeshee TPLF ayaa maanta moodaa inay dagaalkii ugu dambeeyay soo qaaday dagaalkan oo la garanaynin meesha uu dhaanka ku furi doono TPLF ah jamhad qadiimi ah dalweynaha Itoobiya in badan ka soo talin jirtay ayaa waad muddo awoodda ay la soo baxday iyo awoodda ay maalmahanba soo daabulaysa inuu wax qarsoon hubkan ay TPLF soo bandhigtay ayaa muddo hubkii ugu dambeeyay casriga ah inuu yahay sidoo kale waxa lagu sheegay hubkan inuu yahay taangiyadii ay dalka Itoobiya kaga qabsatay waqooyiga dalka Itoobiya oo qarsoona oo maanta ay ku sheegtay maalinkii kala baxa inuu yahay dalweynaha Itoobiya qolowna ay u hadhi lahayd sidoo kale dowladda federaalka ayaa taagteedii ugu dambeysay la soo baxday iyadoo la sheegay ugu yaraan 1 milyan oo maleeshiyada inay dagaalka soo galisay dhulka axmaaradana geedkii askariga in la sheegay askarigu inuu ka badan yahay askarta Itoobiya ciidamada geeska Afrika ugu fara badan lagu tilmaamay ayaan la garanayn tabartoodii iyo awoodoodii meel ay maadaama jamhad yar oo TPLF ama qoomiyadda dalka Itoobiya qoomiyadaha ugu yar ka mid ah inay dagaal kula jirto ugu yaraan 1 sano sidoo kale dagaal xooggan ayaa laga soo sheegay dowladka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya jamhadan haybteeda la garanayay ayaa waxa la sheegay inay booliis kula dagaalantay saaka dowladka magaalada Addis Ababa deegaana ku hareeraysan jamhadan oo aad u hubaysan ayaa waxa la sheegay inay gabiyaanba cagta marsay ciidamadii booliiska ee ku sugnaa deegaanadaasi kana soo kala caydhisay ay halkaan oo iskugu yeedhay shacabkii ku sugnaa dhulkaasi oo kuna sheegtay inay tahay jamhada xoreynta magaalada Addis Ababa jamhadan oo loo mareynay haybteeda iyo qabiilkeeda inay Oromo tahay maadaama Oromo yihiin dhulka deegaanka ugu badan ee magaalada Addis Ababa ku hareeraysan ayaa waxa sheegtay inay gali doonto magaalada Addis Ababa sidoo kale jamhada xoreynta Oromiya ayaa la sheegay inay dagaal xooggan ka wada waqooyiga gobolka Oromada sidoo kale jamhadu maalinimadii shalayda ay shir weyn ku qabatay magaalooyinka ay qabsatay magaalo kamid ah sidoo kale waxay sheegtay inay caasimadda gobolka Oromiya ay u jirto wax yar gabi ahaan mar dhow ay soo afjari doonto maamulka Oromiyana la iskugu yeedhi doono sidii dalweynaha Oromada loogu dhisi lahaa dawlad ku meel gaar ah jamhadan oo jamhad qadiimi ah ayaa wali dagaal xooggan kula jirta dowladda federaalka wali lama soo sheegin guulo waaweyn oo ka gaadhay dhulka Oromada hase yeeshee jamhadu markasta waxay ku hanjabaysaa inay dhulka Oromiya inta ugu badan ayadu ka taliso sidoo kale dagaaladii xooggan ee u dhaxeeyay Soomaalida iyo Canfarta ayaa la soo sheegay maalmihii ugu dambeeyay inay qaboobeen iyadoo la soo sheegay maalinimadii daraaday inuu madaxweynaha Canfartu jiida hore dagaalka tagay hase yeeshee waxa la soo sheegay inay dhaxdhaxaadinay dowladda federaalka wada inay jirto meel fiican maraysa waqtiyada ugu horeeya la soo saarana in warmurtiyeedka iyo heshiisyada la gaaray la soo bandhigi doono dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxaad moodaa inuu sanadkan aad soo adkaynayo xiniisana banaanka soo dhigtay dagaalkan inuu jiida hore diyaar ka yahay inuu xoreeyo dalka Soomaalida laga haysto ee Canfartu ay haysato sidoo kale Canfarta ayaa la sheegay in sharci darro ku haysato dad Soomaaliyeed oo afduub u haysato ayadoona Canfartu marnaba ay isku dayin inay isxaan u sameeyay dadka Soomaalida ee gacanteeda gala Umar badil ku rido taniya kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.